gudoomiyaha xisbiga wixii injineer Faysal Cali Waraabe ayaa soo booqday xafiiska safaaradda Soomaaliland ay ku leedahay dalka Sweden. Gudoomiyaha ayaa waxa ku soo dhaweeyay safaaradda Soomaaliland ee Sweden safiirka Sakariye Xasan Wacays oo uga waramay gudoomiyaha howlaha uu xafiiskani qabto. gudoomiye injineer Faysal Cali Waraabe ayaa dhinaciisa muujiyay sida uu la dhacsan yahay warbixinta uu ka helay xafiiska Soomaaliland ee Sweden iyo waliba howlaha ballaaran ee uu hayo dalka Soomaaliland. haddaba waa kan injineer Faysal Cali Waraabe oo sheegay in xafiiska Soomaaliland ee Sweden uu isaga naftiisa geliyay ididiilo iyo waliba rajo fiican. farxad weyn bay tahay haddana hay safiirka Soomaaliland ee dalkan Sweden in maanta aan nasiib u helo in gudoomiyaha xisbiga injineer Faysal Cali Xuseen oo nagu soo booqdo halkan xafiiska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. runtii intuu booqashada xafiis ku jiray gudoomiye warbixin muhiim ah ayaan kala qaadanay marka ku soo dhawo gudoomiye waa xafiiskaagii waa qarankii soo dhawo. Thank you very much. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. aad baan ugu faraxsanahay ilaahay mahadi weeye maanta inaynu aan taaganahay xafiis oo calankii Soomaaliland ka taagan yahay oo register gareysan oo diiwaan gareysan oo ku diiwaan galaysan xafiiska diblomaatiyada Somaliland جمهورية Somaliland والحمد لله رب العالمين. وحنا أذكر مهنا قيانا وكيلك أو كياني تذلك هي أنت كلا شقي سبب. تزوج إنه توسسا إنه ينوح قبسن كرينه. تزوج إنه توسسا إنه وحينه يهو حق لكن تذلك إنه باهم إنه وحق شيء. وهنشأ إن شاء الله تعالى إنه يسكب بدل الدون سيدخسأ سفارة بحده يعني الله كبر سبحانه وتعالى. marka aad iyo aad baan hambalyeynaya warbixintu isiina warbixin waafiya oo aan ka filayn ilaa inta inuu xafiiskani shaqada qabtay oo dadaalka sameeyay oo idhiiri galiyay oo waan yaranayad xumaa waxa la dibadii waa ku baqtideene laakiin rajo weyn ay tusay ana I see a light through the tunnel rajo weyn baa iga muuqata dalka alxamdulillah rabbil alamin waan maasantay Sakariye thank you very much. barkhada Cabdillaahi Maxamed Home Cable TV magaalada Stockholm ee wadanka Sweden.